faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa geerida General Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole taliyihii ciidanka booliiska gobolka Banaadir oo lagu dilay qarax ka dhacay deegaanka Basra oo 30 kiiloomitir xagga waqooyi ka xiga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. weerarkan ayaa ka dhacay halkaasi saaki waa berigi waxaana wararkaas ay ku darayaan in weerarku uu ahaa qarax miino oo wadada lagu aasay deegaanka Basra waxa uu dhow yahay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dilka Farxaan Qaroole iyo qaraxan lala eegtay ayaa ku soo aadaya wax yar un kadib markii ciidamada dawladda Soomaaliya ay la wareegeen deegaanka Basra isla markaasna war-saxaafadeed ka soo baxay dawladda Soomaaliya lagu xaqiijiyay in al-shabaab laga qabsaday deegaanka Basra oo ka mid ah goobaha ay gacanta ku hayaan. dilkan iyo weerarka waxa uu ku soo aadaya iyadoo hawlgallo iyo weerar ka dhan al-shabaab ay ka socdaan deegaano kala duwan oo ku yaala Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Galgaduud iyo Bay. iyadoo wararkaasina ay ku darayaan in Farxaan Qaroole weerarka lagu dilay waa qarax miino isla markaasna halkaasi uu ka geeriyooday. dad kale oo aan tirada la sheegin ayaa weerarka sidoo kale wax ku noqday. xoogagga al-shabaab ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegteen inay ku dileen Farxaan Qaroole iyo weliba xubno kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyagoo sheegashadaana ku sheegtay warbaahinta ay gacanta ku hayaan al-shabaab. mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in Farxaan Qaroole uu ku dhintay hawlgal ka dhan ah al-shabaab iyagoo sheegay in hawlgalkan uu sii socon doono. deegaanka Basra waxa uu ka mid yahay meelaha al-shabaab ay ku lahaayeen xarumaha oo saldhigga u ahaa isla markaasna xarun weyn u ahayd in laga qabsadana waxay qayb ka tahay baa laleeyahay hawlgalka lagu doonayo in al-shabaab lagaga saaro gobolka Shabeellaha Dhexe iyo weliba gobollo kale oo ka tirsan Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor sii horeysay waxa uu ku baaqay in lala dagaalamo al-shabaab iyadoo dagaalo xooggan shalay ay ka dhaceen gobolka Hiiraan deegaano ka tirsan halkaasi oo lagu soo waramayo in qasaaro weyn uu ka dhashay. geerida Farxaan Qaroole dad badan ayaa ka hadlay inkastoo dawladda Soomaaliya weli aanay ka hadlin oo bayaan ayna soo saarin gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha. haddana ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa barta uu ku leeyahay Facebook fariin uu soo dhigay waxa uu uga tacsiyay Farxaan Qaroole ehelkiisii iyo qoyskiisii iyo dadka Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliya geerida soo gaartay. Farxaan Qaroole muddo ayuu ku dhex jiray howlaha ciidamada intii aanu noqon taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir. waxa uu soo noqday taliyaha ciidanka Haramcad oo ciidamada gaar ah oo dawladda Soomaaliya ay leedahay. waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha firfircoon ee hawlgallada dagaalka al-shabaab ka dhana in muddo ah qayb ka ahaa iyadoo lagu soo waramayo in arrintan ay ku soo aadayso xilli uu hogaaminayay hawlgalka al-shabaab lagaga qabsaday deegaanka Basra. dawladda Soomaaliya ayaa laga sugayaa inay soo saarto bayaan la xiriira geeridiisa iyo ciddii bedeli lahayd Farxaan Qaroole ee qaban lahayd jagada taliyaha booliiska qaybta gobolka Banaadir. wixii warar arrimahan ay ku soo kordha waxaad kala socon doontaan telefishinka HBN. aad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan kooban. nabadgelyo.